markaasuu ilaahay kor noo qaaday subxaana wa tacaala, markaasuu na ciseeyey, markaasuu na karaameeyey, markaasay ummaddoo dhan naga cabsadeen, markaasay gaaladii naga heebaysteen, markaasaa sharaf iyo wanaag gaarnay oo markaan islaamnimada qaadanay. الصلاة والسلام عليك. cumar ibnu khitaab khamiis baa u xihan, wuxuu jiifaa baa la yidhi geed hoostiisa. boqorrada ka mid ah, waa xilligii madaxtinimada uu haayeye, ayaa is yidhi bal ninkaa laga wada cabsanaya soo fiiri, waa boqor kaafir ah, waa la waardiyeyna, dhinacyadiisaa la socdaa, waxaa u xihan xariir, waxaa u xihan labis, usha uu wato waa dahab, waxyaabaha uu ku soconayo iyo kabaha uu xihan yahay ma la tilmaami karo, ma la sifayn karo. wuu soo baxay. cumar xafiiskaa laga fiiriyey, waa laga waayey. gurigiisaa laga fiiriyey, waa laga waayey. waxaa la soo helay geed hoostiisa asagoo jiifa oo hurdaaya, radia allaahu tacaala canhu. gaalkii waa dul yimid, waardiyaalaa la socda. cumar waa la toosiyey. hadalka uu ku hadlay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi, waad xukuntay, xukunkiina waad ku cadaalad fashay, waad aamin noqotay. markaad aamin noqotay ka bacdi waa ninta waad huruday. inaad hurudda waxa kalifay waa cadaaladaada, waxa kalifay waa islaamnimada aad raacday, waxa kalifay waa diintood kor u qaaday. sidaa darteed ayuu u tilmaamay, ama cumarba uu tilmaamayaa inay ahaayeen qoom dulliyaal ah, qoom hooseeya, qoom liita, laakiin ilaahay islaamka uu kor ugu qaaday subxaana wa tacaala. ilaahay baa islaamka kor markaa ugu qaaday subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, alaa ukhbirukum, ma idiin khabraa oo ma idiin sheegaa biahli ljanna, dadka ahlu jannaha ah. ahlu janna tilmaamahooda wax ma idinka siiyaa? ma idiin khabaraa oo ma idiin sheegaa dadka ahlu jannaha ah? waa kullu daciifin, mid kasta oo daciif ah oo mutadacifin la daciifsado marka la fiiriyo sida uu yahay, qaabkiisa, lacag la-aantiisa, baahida uu ku jiro, faqriga, dhibka, mashaakilka ka muuqda, waa daciif. haddana waa mutadacifo, waa la daciifsadaa. dadku saa uguma dhiidhiiradaan. meelaha madaxda ee fadhisa lama fadhiisiiyo, meelaha dadka waaweyn ee akhyaarta ay joogaan laguma soo dhoweeyo. arrimooyin fara badan oo noocaasa ayaa jira. saa darteed ahlu janno waa mid kastoo daciif ah oo haddana mutadacif ah. maxaa u sii dheer asagoo sidaa ah, low aqsama cala allaahi, hadduu ilaahay ku dhaarto subxaana wa tacaala la abarah, ilaahay wuu u baarinimo falaya subxaana wa tacaala. ilaahay ayaa baari falaya haddii uu dhaarto. xataa ay dhacda inuu yidhaahdo wallaahi caawa roob baa imaanaya, ilaahay si uusan u dembaabin ninkaa roob buu keenaya subxaana wa tacaala. anas ibnu nadar ninka lagu magacaabo nin saxaabada ka mid ahaa, yaa waxaa dhacday in eedadii ay la dagaalantay naa kale, iligtay ka jebisay. mar allaala markay ka jebisaa kitaabka ilaahay qisaas ku qoran. anas wuxuu yidhi, yaa rasuula allah, eedaday dhoosheeda maba la jebinaayaba, waayo ciddii way diideen inay arshi iyo diyo qaataan. waxay yidhaahdeen hana loo qisaaso, waxay yidhaahdeen iligta hana loogaga jebiyo. bacdamay saas ay tahay, ninkan wuu dhaartay oo wuxuu ku dhaartay ayaa la yidhi inaan iligta eedadii la jebinin. rasuulkii ilaahay wuxuu ku yidhi, anasow, kitaabullah qisaas, kitaabka ilaahay qisaas baa ku qoran, ninkan wuu dhaartay. intaa wixii ka dambeeya haddii iligtaa la jebiyo waa inuu soomo oo kafaara gudkii la yimaado. habeenkii markii la seexday, subaxii laysku yimid ayaa qoladii diyo oggolaatay. markaasuu rasuulku wuxuu yidhi, addoommada ilaah waxaa ka mid ah mid hadduu ilaahay ku dhaarto, ilaahay u baarinimo falaya subxaana wa tacaala. ilaahay ayaa baarinimo falaya. marka ahlujanna waa kaasaa, waa nin ahlu diin ah, waa qof ahlu tawxiid ah, waa qof ahlu khayr ah, haddana daciif ah, haddana mutadacif ah, dadka aan ka socnayn, dadka aan laga sooci karin. low aqsama cala allaahi la abarah, hadduu ilaahay ku dhaartana ilaahay waa u baarinimo falaya. alaa ukhbirukum biahli nnaar, ma idiin sheegaa ahlu naarna?
war dadka inkaarta ku dhacdee naarta gelaya ahlu naarka ma idiin sheegaa waa kullu cutullin waa mid kasta oo madax adag, macnaha diinka ilaahay aan lagu karin, oo diinta ilaahay aan qaadanaynin, oo diinta ilaahay maskaxdiisa aan gelaynin, haddana jawaad ah, qallafsan, akhlaaq xun, oo aan dadka la dhaqmi karin, oo dadka aan jeclayn, oo dadku ay necab yihiin, jawaad ah, ad adag ka kan oo qalbigiisa adag yahay, haddana mustakbirin, isqaadqaad iyo kibir iyo isla weyni badan buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam. ahlu jannana waa daciif mutadaacif ah, ahlu naarna waa cutullin jawaadin mustakbirin, waa madax adag yahay. aayadaha qur'aanka oo dhan haddii korkiisa lagu akhriyo ma isbedelaayo, jannoo dhan haddii looga sheekeeyo waa sidiisa, cadaabka haddii hortiisa lasoo dhigo waa sidiisa, jawaad ahoo wuu qallafsan yahay, macnaha akhlaaq fiican ma laha, haddana waa mustakbir, wuu isqaadqaad badan yahay, waa kibir badan yahay buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. saa darteed ayaa qofka muslimka ah mar kasta waxaa la rabaa inuu ahaado nin deggan, waxaa la rabaa inuu ahaado nin ku sifaysan sifaadka ahlu jannaha. ma aha miisaanka wax lagu kala miisaamo qofkaana daciif ah, qofkaanaan tabar daran, qofkaanaan hanti haysan, qofkaanaan madaxnimo ka dhalanin, qofkaanaan meel sare ka imaanin. xaaladda noocaas ah ma jirto. waayo abilcabaas ninka lagu magacaabo waa sahl ibnu sacd assaacidiy wuxuu yidhi anigoo nebiga la fadhiya mara rajulin cala annebiy, nebigaa dushiisa nin soo maray sala allahu calayh wasalam. akhyaar baa nebiga la fadhisay, nin baa meesha soo maray, rasuulku wuxuu yidhi nin agtiisa fadhiyey, wamaa ra'yuka fii haada, war ninkan iga warbixi bal, ninkan warbixin iga sii meesha maray, maa ra'yuka fii haada. rajulkii wuxuu yidhi faqaala rajul min ashraafi annaas, dadka ugu sarsareeya ayuu ninkan ka dhashay. haadaa wallaahi xariyun, midkaan ilaahay baan ku dhaartee waxaa xaqiiqo ah in khataba an yunkaxa, hadduu caaba gabar doono isla markii in la siiyo, hadalba aan lagu soo celinin, waxba su'aala aan la weydiinin, wax kale oo lagu soo qaado aysan jirin. waxaa xari ah oo xaqiiqo ah in khataba haddii uu doono an yunkaxa in loo nikaaxiyo, wa in shafaca an yashafac, hadduu shafeeco dalbo, hadduu meel tago uu yidhaahdo aawey ninkan ha la dhaafo, aawey ninkan waxaas ha la siiyo, isla markii ergadiisa waa la aqbalayaa. warbixintaasaa rasuulka la siiyey, fasakata wuu aamusay sala allahu calayhi wasalam. rasuulku waa aamusay. intaa ka bacdi nin kale ayaa meesha soo maray, warkanna iiga waran buu yidhi, maa ra'yuka fii haada, ninkan ra'yigaaga iga sii. wuxuu yidhi yaa rasuula allah, haadaa rajul min fuqaraa'i almuslimiin, kani waa nin ka mid ah fuqarada, danyarta, xoololaabayaasha, dadka daciifka ah, guryaha fiican aan ku jirin, oo muslimiinta markaa ka mid ah, balse waa muslim, waa hoggaansan yahay, oo diinta alluu u hoggaansan yahay subxaana wa tacaala, laakiinse waa fuqaradii muslimiinta. haadaa xariyun, waxaa xaqiiqaa kan haddii uu khitaabo ee gabar uu doono allaa yunkaxa inaan lagu nikaaxinin, woo looga kaco fadhiga, looga kaco gogashii akhyaarnimada, laga kala dareero. taasaa markaa xaqiiqo ah. hadduu shafeecana aan warkiisa la maqlin, aanba shafeecadiisa iyo ergeyntiisaba la maqlin. wain qaala an laa yusmac, hadduu hadlaayana maba la dhegaysanayaba, war yaa hadlaayaa la leeyahay, waa laga kala tegayaa. miisaan buu soo qaatay marka nebiga sala allahu calayhi wasalam, miisaankuu wax ku miisaamay fiiri. faqaala rasuulu ullahi, rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi, haadaa khayrun min mil'i اlardi midla haada, midkan waxa uu ka khayr badan yahay kii hore arlada muggeed oo la mid ah, kana ka khayr badan. ma aha 1 iyo 2 iyo 3 ilaa 10, laakiin nebigu wuxuu yidhi waa mil'u ardi, waa arlada muggeed, arlada adduunka wax buuxiya oo kii hore aad tilmaanteen ah, midkan ayaa ka khayr badan, oo ilaahay xaggiisa looga jecel yahay, oo ilaahay xaggiisa laga soo dhowaynaya subxaana wa tacaala. haddaba dadka muslimiinta ah hadday islaamka qaataan, waxyaabaha daciifnimada iyo tabardarida waxa ka tirtiraya waa islaamnimada, waxa kor u qaadaya, u sharafeynaya, sharafta u yeelayana waa diinta islaamka ee ilaahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala. sidoo kale nebiga waxaa laga wariyey inay jannadii iyo naartii doodeen,
murun baa dhex maray jannada iyo naarta. ixtajabat iljannatu waannaar faqaalat innaar, naartii waxay tidhi fiya aljabbaaruun waalmutakabbiruun, fiya aljabbaaruun, aniga jabbaariintaa igu sugnaaday. dadka jabbaariinta ah ee kibirka badan, dadka jabbaariinta ah ee kibirka badan ayaa aniga igu sugnaaday tiri. waa naartii. fiya aljabbaaruun waalmutakabbiruun, iyo dadka mutakabbiriinta isqaadqaadka badan. mutakabbir yaa la yidhaahdaa